kulanti habboon idin ahaantiinba daawadayaal ku soo dhowaada xuriga xaqiiqo qaybta falanqaynta barnaamijkan waxa aynu isku dultaagi doonaa haddii alla idmo colaada ka aloosan dalka Yemen xuutiyiinta waxaa barnaamijkan igu weheliya saaxiibkeen Xuseen Xaaji Barkad. Xuseenow mar kale soo dhawow. waan dhawahay Saciid, waad mahadsantahay. ugu horeyn Xuseen inoogu bilow dhacdooyinkii iyo xogihii u dambeeyay dagaalka xuutiyiinta iyo Carabta. bismillaahi raxmaani raxiim. Saciid, saan ognahay dagaalku horta wuxuu socdaa muddo hadda maaragtay sanadkii 8aad buu sii socdaa. 2014 uu bilaabmay, hadda 7 sano socdaa. dagaalkaasi waxa maaragtay ku hirdamay waxa weeyaan waaga waxa loogu yeeray dawladaha muslimiinta taxaaluf al-islaam ama coalition of muslim land heshiiskii taxaalufkii, laakiin waxa taxaalufkii ku soo koobmay saan ognahay dawladda Sacuudi Carabiya iyo dawladda Imaaraadka. labada dawladood hadda ku soo haray. waaga hore waxa kula jiray saan ognahay Turkiga, Pakistan, dawlado badan, Masar, dawladihii hore ay ka noqdeen. waxa ku soo haray markaa Sacuudiga, Suudaan, Imaaraadka. laakiin labada dawladood tooska ugu jira dagaalku waa Sacuudiga iyo Imaaraadka. afantrigana badana waxa afantri wataba waa Suudaan. marka dagaalku wuxuu salka ku hayaa nimanka xuutiyiinta oo ah madhabka shiiciga oo Zaydiga haysta oo qabsaday caasimadii Sanca, iyo dawladahan Sacuudiga iyo Imaaraadka Khaliij al-Arab oo ahlu sunna ah oo iyagu diidan in maaragtay dhabarkooga ay fadhiistaan shiicadu, maadaama wejigoogana shiica fadhido xagga Iiraan. marka dagaalka horta sida guud salka saas ku haya. xogaha u dambeeyay gantaalada ku habsaday baraagaha shidaalka maxaa saameynay dagaalka ay ku yeelan karaan? horta Saciid, saan ogsoonahay gantaalahan way maaragtay xuutiyiinta riday waxayna ku rideen xaggan maaragtay gobolka shidaalka ka soo baxo ee Xisaaga la yiraahdo ee Sacuudiga ku yaala. marka arrintu waxa isweydiin leh gantaaladii Patriotka ee Mareykanku siiyay Sacuudiga oo maaragtay qaban waayay. arrintaas laba mid bay lagu qiyaasi karaa. mid waxa weeyaan waa mid oranaysa in gantaaladaasi Mareykanku Patriotku siiyay in maaragtay isticmaalkooga ay Sacuudigu garanayn, ama inay maaragtay qaabka ay wax u qabanayaan qaab ka casriyaysan gantaaladan xuutiyiintu ay noqdeen. marka labada option ba hadda lagu macnayn karaa. waxayna dhibaato ku tahay horta waxba iskama bedelin petrolkii Sacuudiga, laakiin waxay dhibaato ku tahay xaggii amniga oo ah maaragtay in gantaaladii Mareykanka difaaca ka ahaa maaragtay inay Sacuudiga hawada ka ilaashaan iyo gantaalada lagu soo riday ka ilaashaan inay qaban waayeen. marka ama farsamada haqaanka Sacuudiga ayaan khibrad weysa ahayn. qodobka labaad wuxuu noqonayaa in gantaalaha Mareykanka uu siiyay kuwa ka casrisan xuutiyiintu isticmaalaan. marka su'aashu waxay imanaysaa yaa siiyay kuwa ka casrisan kuwan Mareykanka Sacuudiga siiyay xuutiyiinta. halkaasay markaa khalkhalku ka imanaya. qadiyad ahaan haddaad faslaad aad ka bixisid qadiyadda dagaalkan labada dhinac ay isku hayaan bal si qoto dheer dadka aan hore ula socon arrimaha xuutiga iyo Carabta haddaad noo taabatid. horta Saciido, waa su'aal aad u muhiim ah oo maaragtay salka dagaalka inaad fahanno horta waa wax muhiim ah. horta Saciido, waxaad og tahay caalamka islaamka wuxuu qaybsan wax la yiraahdo madhabka sunniga oo 90% ah iyo madhabka shiiciga oo 10% ah. laakiin madhabka shiiciga hal dhibaato haysata, hal dawlad oo qura leeyahay, waa dawladda Iiraan. halka sunnigu ilaa 53 dawladood mise 52 dawlad wax noocaas ah ay muslimiintu leeyihiin. madhabka markaa shiiciga wuxuu ku faafsan yahay sida loo yahay Khaliij al-Arab, wuxuu ku faafsan yahay Yamanta qaybtan mataqaana Sanca, caasimadda Sanca, Saacada ilaa maaragtay intaas ku faafsan yahay xuutiyiinta iyo dadkaas shiica. qaybta annagana soo xigtay Yamanta, Cadanta iyo dhulka kale oo dhan waa maaragtay waa sunno oo madhabka Shaaficiga haysta. Sacuudiga iyo Imaaraadkuna waa sunniyiin. inkasta oo Sacuudiga qayb ka mid ah qaybta petrolku ay degan tahay madhabka shiicadu ay degan yihiin.
marka horta dagaalka Yamanta ka socdaay waa dagaal madhabka sunniga shiicadu ay isku hayaan si ay u saytarayn lahaayeen ama u qabsan lahaayeen maaragt khaliijul cadam oo la soco Saciid khaliijul cadam innagaaba kamid ah berbera iyo Somaliland iyo Djibouti dadkaas dhan waxay salka ku hayaan iyo Soomaalida kalaba khaliijul cadam وأنا أقول يعني خليج أرض الحبش بالوريج الواقي هاره يمكن كده أضو أنت قميصي من خليج العدم بيكديان لكن تاريخيا أروح الوريج بحر الحبش بالوريج بنت حبش ده مركا لكن حتى هان مركا السامي وين أو معركة ربعنا قفصان بدحس إيران أو معركة أجندة دي هاي oo ognahay Saciid inay maaragtay 5 qarni ka hor inay Makkiya Madiina qabsatay rabtay oo suura gal weeyday Cusmaaniyiintu maaragtay meesha kala wareegeen 5 qarni ay iska sugaysay hadda waxay bilowday wax la yiraahdo markii Ciraaq la dumiyay Mareykanku dumiyay Shiicadii Ciraaq la wareegtay qabsadeen bay waxay soo nooleeyeen wixii oran jiray in maaragtay Makkiya Madiina la qabsado laakiin Makkiya Madiina toos looma qabsan karo haddii Yamanta gacanta lagu dhigay Saciid marka Yamanta si gacanta loogu dhigayaa dadkii xusiyiinta ahaa ee maaragtay shiicadaha waa in la nooleeyaa oo la taageeraa oo la xoojiyaa si ay maaragtay ugu faafo madhabkani ilaa Jidda wadowdnaho badda casbi saaran tahay oo maaragtay waa in cadana la qabtaa marka imika marka eegtid Gulf of Arab ama khaliij al-Arab waxaan loo yaqaano goboladan 60 dawladood yaryar ee Sacuudiga ugu weyn yahay Imaaraadka Qatar Kuwait Bahrain wadanaas imika oo bay ku jiraan maxaa yeelay Ciraaq oo xagga kor ka saaran shiicada qabsatay Yamanta oo dhabarkoogana waxa qabsatay shiicadii caasimadii Suuriya oo inagoo shiica iyo Ruushka haysta Lebanon shiicadii baa Hizbullah baa ku xoogan marka Iran ajandihii u socotay in Makkiya Madiina qabsato ay maaragtay dhulkan la wareegto ajandihii waa u dhow yahay inuu fulo hadda waxa hortaagan caqabad ku ah Mareykanka degan khaliijka laakiin hadduu Mareykan biri ka baxo biri ka maal toos bay ula wareegaysaa marka inaguna halis baan ku jirnaa in madhabkaasi xataa xoogna loogu faafiyo saameynta haddii taasi dhacdo oo Mareykanku ama ha ka baxo ama iyagaba heshiisa la galay u difaacayo carabta ay meesha ka baxdo oo ay dhacdo in Iran iyo manhajka shiicadu uu guuleysto khatar nooceeya ama halis intee leeg ayaa inaga Soomaali ahaan inuu soo wajihi kartaa horta Saciid saan ognahay madhabka shiicigu waa madhab ku dhisan dhiig tusaale ahaan wadankan Iran la yiraahdo 8 qarni waxa ahaayeen dad sunniyiina oo ahlu sunna oo madhabka Shaafiiciga sidoo kale madhabka Shaafiiciga haystay waxa ku dhacday markii uu qabsaday ninkii la oran jiray Ismaaciil as-Safawi ninka oo maaragtay qabsan doona 5 qarni iyo bar ka hor markuu qabsaday wadanka wuxuu sameeyay wax la yiraahdo xasuuq bil aadanimada cidna aan loo geysan taariikhda ayuu ka geystay Iran sunnigii oo dhan waa tirtiray hadda waxaan ognahay Saciid magaalada Tehran caasimadda Iran hal masjid oo sunniya kuma yaal waa ka mamnuuc hadda marka horta madhabkan waa madhab ku dhisan dil iyo dhiig daadin waan ognahay Saciid marka shiicadu sanadkii xusayaan ay leeyihiin waxaan xusaynaa Imaam Hussein radiyallahu anhu way istumaan oo wada aragtaa maalinta TV-da iyagoo istumaya isgaraacayo dhiig iska daadinaya marka horta waa madhab ku dhisan argudashiya dhiig marka hadduu mantiqadan uu qabsado horta dadka Soomaalida inay xasuuqaan oo anaguna imka Soomaalida shiicaynayo oo faqriga looga faa'iideysanayo inay jiraan baan ognahay marka inay dadka xasuuqaan hadhow toole oo halka laga soo duulo oo maaragtay Makkiya Madiinana laga mamnuuco xujaajta halista koobaad Makkiya Madiina xashka tagi mayna Saciid oo haddana madhabka qaadan cid tagaysay ma jirayso waa midda labaad dhaqaaliheen xoolaheen waxay ku xiran yihiin khaliij al-Arab oo dadku waxaan ka dhoofinaa xeebaheena gaar ahaan berbera waxa laga dhoofiyaa xoolaha dhan oo qaataan khaliij al-Arab xoolahaasi dhoofi maayaan haddana madhabka qaadan bay imanaysaa hadhow toole cunaqabatayn dhaqaalo aan baa lagu soo rogaya waa midda kale in dad ahaan maaragtay lagu soo duulo oo madhabka xoog lagu faafiyo oo muslimiinta Soomaaliyeed aad loo mariyo bay maaragtay qaarka u saarnaanaysaa marka halisahaas oo dhan baa Saciid soo socda dawladaha Soomaaliyeed ama madaxda Soomaaliyeed sidaa ma u fahansan yihiin bay kula horta Saciidow madaxda Soomaaliyeed horta Somaliland baa horta meesha ka jira laba dawladood labada dawladoodna aanu sayla tahay wali
Somaliland baa xoogaa maaragtay xaliif la noqotay imaaraadka oo xataa xuutiyiintu aad ogeed ku hadideen inay garaaci doonaan berbera gantaal la dhici doonaan marka istaraatiijiyahan Somaliland oo kale wadadan ay qaaday inay la xulufowdo imaaraadka iyo Sacuudiga horta waa wada fiican dawladda Soomaaliyana iyadu dhexdhexaad baan ka ahay tir dagaalada marka aanu arinta waxaan u arkaa inay tahay arin maaragtay istaraatiijiga aan ku wanaagsaneyn dhexdhexaadnimadaas laakiin tan Somaliland ay qaaday ah in ay la xulufowdo nimanka difaacaya dadka isku madhabka tihiin isku dhaqaalaha tihiin aad isku dadka tihiin nimankaas oo ah imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa maaragtay muhiim ah marka Somaliland bad u maraysa inay yara fahansan tahay madaxda Somaliland ka wada madaxda Soomaaliya laakiin iyagu wali maaragtay khatarta inay arag barmaray dagaalka xuutiyiinta iyo carabta hadda dabcan sanado badan buu soo socday intee baad saadaalin kartaa inuu sii soconayo amaba bal haddaad isku daydid inaad diiradda saartid bal natiijada uu kusoo dhammaanayo in badan waxaynu ognahay in wada hadallo ay socdeen waxba natiijo laga midhodhalin kari waayey bal intaas isku day in aad isku daydid natiijada dagaalkan waxay kusoo dhammaanayso iyo muddada uu qaadanayo horta saciidoo natiijada lama garan karo laakiin waxa la qiyaasi karaa saansaanta waxa weeyaan nimankan Iiraanidu waan ognahay beesas bay ka samaysteen jasiiradahan Eritrea ku yaala si loogu duulo Yamanta gacanta loogu wada dhigo dhamaan taariikhiyana saciidoo markaad ku noqoto taariikhda qabla al-islaam markuu nabigu Alayhi salaam dhashay waxa mantiqada qabsaday Xabashi kabacdina waxa ka saaray Iiraani oo ka soo galay xagga Yamanta marka istaraatiijiyadan Farisiintu waa istaraatiijiyad 1200 sano ku qotanta ay saaran tahay laakiin hadda waxay dagaal ku dhamaan doonaa waa inuu labada mid guuleystaa ragada labada madhabka sunniga ama madhabka shiiciga marka hadii wadanada khaliijkuna saciid military ahaan ma guuleysan karaan waxayna u guuleysan kareen waa dad yar aan isku xidhnayn xagga military ahaan tababar fiican oo xagga askarta aan haysan hadii Masar iyo maaragtay dawladaha waaweyn sida Turkiga ay soo galaan dagaalka markaas dagaalku waa la soo afjari karaa laakiin so long ay Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo labada dawladood qura ay ku jiraan meesha iyo Suudaan oo hadda ogno Suudaaniyadii ba khalkhal siyaasadeed haysto dagaalkaasi nimanka Shiicadu ay yara gacan sareynayaan caasimadda iyo gobolada ay haysanayaan inay ku faafaan wadanka dhanna khatar bay ku yihiin waan ognahay in meelo badan bay sii qabsadeen Sacuudigu inuu cirka ka weeraro Imaaraadka mooyaan laakiin inay wax weyn ka bedelaan mantiqada way ku adag tahay ilaa ay dawlado waaweyn oo maaragtay Carabta Masar oo kale ama Turkigu ay soo galaan ay maaragtay Iiraan maaragtay balance ay ku sameeyaan ay maaragtay halka maaragtay ka qaloocato oonjeeda ka wiiqato awoodooda waayahay Xuseen Xaaji Barkad falanqaynta aad iskula kayo dul taagtay colaadda Yemen xuutiyiinta iyo carabta aad iyo aad baad u mahadsan tahay falanqay waad maaragtay adaa mudan insha Allah saciid dadkan waxaan leeyahay waa idin salaamaya dadkana daawanaya waagaagaas wuxuu ahaa Xuseen Xaaji Barkad daawadayaal barnaamijkii xul iyo xaqiiqo aynu ku falanqeynaynay dagaalka xuutiyiinta ee dalka Yemen waa naga intaas fadlan xagga shareta iyo commentiga iyo likes waa dhankiina inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono gabi ahaanba waxaan idinkaga tegaynaa amaana Allah